halkaas oo laga yaabo ilaahay quraan in uu ka helo kadibna ilaahay caafimaad ku siiyo haddii eebba yidhaahdo waa mahadsantihiin gaar ahaan ururka soomaalida ee isboola ka dhisan oo mar kasta ka shaqeeya in uu isu keeno soomaalida kala duwan ee degan gobolkan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحبكم مديرانا هذا وهورا اللود مي كلية وحن ربا إن كتاب تأرينك أهلي كان ولكن حنوصن أقاتيرت إلى هذين عذر آذن كعيننا كهايو إلهي مدهين وبلا آدم وحيري إن يقلدمين وادع كرتا إلهي waxaan ka baryaynaa marka hore inuu ilaahay caafimaad siiyo marka labaadna waa Soomaalinimada iyo walaalnimada iyo waa inta adduunka la joogo iyo wax istarista iyo in wax la soo qabto in la iscaawiyo in qofkii dhibaataysan maanta la garab qabto ninkaas walaalkeena ah wuxuu naga codsaday hooyadiisu uusan muddo 10 sano arag inuu hadii uu ilaahay naftan waa amaana uu ka soo doonanayo oo sida ay dhaqaatiirtu sheegeen ay dhacayso inuu hooyadiisku agnaf waayo hadii ay dhacayso hadii kalena waqtigiisa uu dhamaado hadii uu satiisa dhamaana cid horumaraysa ilaahay og annagan hadda hadlayna waqti aan dhimanayna ilaahay baa og marka waa u duceyneynaa waxaan ku amaanaynaa jaalida Soomaalida iyo guddiga oo gudoomiyaha la fadhiyo iyo intii qayb ka qaadatay in meel lagu wada afuro dadkan ummadda Soomaalida oo walaalaha ah ilaahay ajri xasanaad badan ha ka siiyo intii isku soo hawshay ama intii gurigooda ku soo sameysay cuntada ama intii ka qayb qaadatayna ilaahay ayagana inta in la mida ilaahay siiyo intii walaalkeen ka qayb qaadato ama bixistiisana ilaahay nin walba meeshuu ka baahan yahay Allah ka baahi tiro aniga intaasaan ku soo gabagabeynaa ilaahay soonkii salaada naga aqbalo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم waxaan dhiilahay wala dhahay wala leeyahay yiri marka waxa kale aan ku darsanayo waxay tahay maadaama oo bisha Ramadaan noo sameeyay meel yar oo aan ku afurno inuu sameeyay Cabduqaadir Nuune iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo inta kale oo kaalmayso afurkan intii ka qayb gashay ilaahay qaar ha siiyo ninkan xanuunsanna ilaahay caafimaad buuxa Allah u keeno maadaama uu dhiban yahay dhibkana ilaaha keenay ilaahan u baryeelna marka wax kale oo aan ku kordhinayo ma jirto ilaahay inuu ilaahay caafimaad siiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم مركور السلام يا دمان انت قدي هلك كسو قيب gasho ugu horeeyo gudoomiyaha jaalida Iswoola dominone iyo ku xigeenkiisa dhamaan marka xiga aad iyo aad aan ugu faraxsanahay anigoo ka imid Emelot inaan halkan maartay kula afuro walaalaheena reer Iswoola aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa inta ka qayb qaadatay afurkan sanad walbana ka qayb qaadatay iyagana ilaahay ajri iyo xasanaad Allah ka siiyo haddaan in yar aan ka taabto yarkan walaalkeena xanuunsan oo ilaahay caafimaad ha siiyo ilaahay caafimaad ha ugu bedelo biidhnillaahi tacaala intaasaan ilaahay ka baryaynaa oo kaliya waxaa haray oo haro kale aan raba inaan wax ka taabto caawinaada ninkan walaalkeena ah ee loo fidinayo kuma koobna kaliya anaga oo kaliya caawinaadan qof walba oo Soomaali ah oo degan Iswoola in waaxigeeda degan maartay way u furan tahay inuu ka qayb qaato caawinaadan yarkan walaalkeena ah ee xanuunsan waa sadaqo bil Ramadaan baa lagu jiraa kii ka qayb qaatana isigana ajri xasanaad Allah ka siiyo kii u soo duceeyana isigana sidoo kale Allah ugu bedelo intaasaan uga baxayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim walaalayaal waxaan la hadlayaa waa Cabdullaahi Maxamed Macalin Muxdiin intaas oo qofood waxay soo tiri umbaan ana ku celin doonaa horaan uga hadlay maartay afurkan iyo mataqaanaa qabanqaabadiisa iyo hawsha taala meesha in allaalay intii gacan ka geysatay iyo intii mataqaanaa ka soo qayb gashay iyo intii aanan soo gudoomisay iyo intii soo go'aamisay ilaahay xagga sare isaga joogay xagga sare go'aankooda meel fiican ha uga gaaro ilaahay baryaynaa
midda labaad wiilkaa xanuunsan xanuunka ilaaha keena ilaahana qaada qofkana ilaaha abuurtay ilaahana ceshanaya waqti ay ceshanaya iyo waqtiga asagay u taala Allah subhanahu wa ta'ala sidaqa ninka ku sidaqaysan kara meesha uu jeclaaday ee hooyadii ku nooshay ee ku dhashay ee dalkiisa ee calankiisa yaala ciidiisa ilaahay ma taqaanaa si samaha ugu celiyo annagana waxaa nagu waajiba inaan celinno oo meeshii ku celinno iyadoo aan ma taqaanaa qalbiga iyo ma taqaanaa jeebka iyo xoogga iyo aqliga iyo ducada iyo wax walba aan ku tabarucayno waxa nagu waajiba haddaan Soomaalinahay qofkeena ku dhibaataysan ereyada inteenan istaqaana in aan ma taqaanaa meesha asagu naga dalbaday inaan ku celinno 10 shilin 10 euro iyo 10 dollar iyo 10 pound iyo 20 iyo 30 iyo lama waayin alxamdulillah marka intii ka qayb qaadan kartay ee Soomaaliyeed ee wanaagga nala jecel ee horu socodka nala jecel inaan sii jirno jecel ciideena iyo calankeena iyo cid alla Soomaali cid jecelba iyadoo inay ka soo qayb qaadato wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa mahadsantiin